munaasabadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka socotay qaramada midoobay iyo UNHCR xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya madax ka socotay midowga Afrika iyo waliba marti sharaf kale waxayna ahayd ujeedka xafladani mid lagu xusuusanayay Saamiya Yuusuf Cumar oo ahayd gabar Soomaaliyeed oo orodyahanada taasi oo ku geeriyootay tahriib ay u gashay dalalkaasi Yurub sidoo kale munaasabada ayaa waxa lagu weyneynay laguna soo dhaweynay maalinta bini'aadanimada adduunka oo ku aasaysan maalinimada bari ah bilowgii munaasabadan ayaa waxa lagu dahrogay tartan yar oo orod ah kaasi oo soo qaban qaabisay madaxa UNHCR Soomaaliya Mrs Alexander Mureli ayadoona sharaxaad kooban ka bixisay ujeedka iyo waliba tartankaasi waxayna sheegtay in maanta ay xusayaan Saamiya Cumar Yuusuf oo ahayd gabar jecel inay sare u qaado calankeeda Soomaaliya. To include also Saamiya, who was running on these shores of Mogadishu, who was making it the best dream of her life to join London and to bring the flag of Somalia high. So I want you to run for Somalia as well, for peace, for unity. We are all Saamiya today. We are all Saamiya today. orodkani yar oo ahaa 5 kiiloomitir ayaa waxa abaalmarino la gudoonsiiyay orodyahanadii ka qayb galay tartanka waxaana gudoonsiiyay ra'iisul wasaare xigeen ahna wasiirka diinta iyo qaafta xukuumadda Soomaaliya Ridwaan Maxamed Xirsi Hodan Yuusuf Cumar oo ah gabar la dhalatay Saamiya ayaa iyadana goobtaasi tixgab ay ka soo jeedisay Saamiya dalshiisheeyo dawlad kale marabin Saamiya dalshiisheeyo dawlad kale marabin qaranka Soomaaliyeed ay difaac lahayd dayaca loo geystayo aynan helin daryeel xuquuqdii ay lahayd dabool galsheen damac ka sihir bay galsheen badkiiba la daagay Saamiya lama duugin qarankeedii baa dayaacay Philip Lazarani madaxa isku dabaridka arrimaha bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobay Soomaaliya ayaa isna goobtaasi hadal ka jeediyay After the killing on 19 August 2003 of 23 waxaan ka shaqeynayay in muddo arrimaha bini'aadanimada waxaan hadda ku faraxsanahay in Soomaaliya ka qayb qaato maalinta bini'aadanimada adduunka arrintan waa mid ay wada taagan yihiin dhammaan ummadda caalamka sidoo kale Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ay ka jiraan arrimaha bini'aadanimada una baahan in laga taageero ra'iisul wasaare xigeen ahna wasiirka diinta iyo qaafta xukuumadda Soomaaliya Ridwaan Maxamed Xirsi oo soo xiray munaasabada ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ka qayb galo xuska maalinta bini'aadanimada adduunka axsanahay inaan maanta idin kala soo qayb galo xafladan qiimaha badan ee lagu xusayo maalinta bini'aadanimada adduunka anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan jecelahay runtii inaan halkan ka sheego in aan aad iyo aad runtii u soo dhaweynayno roolka iyo doorka ay ku leeyihiin hay'adaha caalamiga ah oo ay ugu horeyso United Nationska iyo hay'adaha kale adduunka ee ka shaqeeya arrimaha bani'aadanimada Saamiya Yuusuf Cumar waxay ku dhalatay gudaha dalka Soomaaliya sanadii 1991 xilligii gudaha dalka Soomaaliya ka qarxay dagaalkii sokeeye Saamiya hadii jeer waxay ku riyoon jirtay inay noqoto orodyahanad caan ah iyo waliba inay ka qayb qaadato tartamada caalamka waxayna ahayd qof si aad u shaqeeya si ay u gaarto riyadeeda 2008 waxay Saamiya oroday tartanka 100 mitir waxayna jirtay xilligaasi 16 sano ayadoona sidoo kale isla sanadkaasi ka qayb qaadatay tartan ka dhacay magaalada Beijing ee dalkaasi Shiinaha 2011 Saamiya waxay u guurtay magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Itoobiya Agoosto 19 sanadii 2012 jariirad ka soo baxda dalkaasi Talyaaniga ayaa waxay soo daawacday inay geeriyootay Saamiya Yuusuf Cumar oo ahayd gabar orodyahanad Soomaaliyeed ah محمد إبراهيم قابو رويال تي في مقدشو